fara badan noole innaka bulsho ahaan iyo dhalinyaro ahaanba waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa Stan TV oo runtii si platformkan lagama helo institutionada waxyaabaha ku wanaagsan waxa kamid ah intaas oo dhan facility abin hadda caawina siiyeen oo aynu haysanaa marka runtii iyaguna waxa weeye qiimo gaar ah inay leeyihiin inay bulshada iyo wax ku soo celinayaan marka caawa waxaan isdul taagayna bal inta akhyaartu waxay ga soo codsadeen bal inaan u dul maro ninkan odayga ah halkeedii ka muuqda caawa I'm Lewis oo duq weyn ah oday uu dhintay hadda ma noola inaan bal waxyaabo scholarshipkii iyo aqoontii inaga qoray iyo basically asaas ahaan waxay tahay bal inaan introduction kooban ma aha exhaustive ma aha aad details fara badan gelimayna laakiin generally inaad laga qaato uun bay nagu talagalay aad iyo good backgroundkiisa I'm Lewis odaygi duqa hadda aynu arkayna I'm Lewis 1930kii wuu dhashay waxa iska dhalay oday Welsh ah gobolkan Wales la dhaho boqortooyada Ingiriiska ka soo jeeda iyo islaan Scottish ah hooyo Scottish ah iska dhalay marka Glasgow buu ku dhashay ku koray aabihii markuu dhintay agoon buu noqday aabihii baa dhintay aabihii markuu dhintay waxa soo koriyay odaygii dhalay hooyadii marka magaalada Glasgow buu ku barbaaray halkaasuu jaamacadda ka galay jaamacadda markuu galay University of Glasgow buu galay oo ka galay chemistry-ga kimiyada uu ka baranayay halkaas marka isagoo jaamacaddii I think inay sanadkii labaad meelaha isagoo marinaya baa wuxuu arkay iclaam meel ku dhegsan oo la leeyahay waxa la siinayaa scholarship arday ka imanaysa natural scienceska oo markaa baranaysa humanitieska iyo social science marka offerkii buu arkay wuu xereeyay kadibna wuxuu u wareegay jaamacadda Oxford University of Oxford departmentiga anthropology-ga buu ka bilaabay waxbarashadiisii marka waqtigaas anthropology-ga jaamacadda Oxford waxa haystay oday arrimaha East Africa aad wax uga qoray oo magaciisa halkan waa ku qoran Evans Pritchard la dhaho baa markaa wuxuu ahaa ninka ugu weynaa arrimaha wax ka qoraya marka odaygaasu arday u noqday odaygaasu wuxuu la qori jiray wuxuu la ururin jiray xogaha uu ka soo ururiyo marka odaygaasi wuxuu daraasaynayay dadka Oromada iyo Nuweerka Suudaaniyiinta iyo dadka kan la dhaho Soohada ama Saaho people waa dad ethnically Cushitic ah laakiin waxay degan yihiin dhulkan Tigreega iyo mostly Eritrea degan yihiin marka dad adigu tiradoodu 1 milyan ma dhaafisna waa dad yar oo ethnically aad u kooban dadkaas marka odaygu darsayay wax badan ka qoray marka xogo dhowra oo isu soo ururiyay oo isu keenay wuxuu yiri warni inta isku qaadatid bal baad oo waxa sameeyay mastertaada dissertation ka qor sidii buu dissertation-kii ku qoray mastertii marka halkaasu interest ka ah inuu wadamadan Africa waliba East Africa ku shitiga inuu baaro uu ka helay markuu dhameeyay masterta markuu dhameeyay PhD buu marka doctorate bilaabay doctorada wuxuu doctorada markuu bilaabay wuxuu ka helay research grant ama deeq baadhis cilmiyeed wuxuu ka helay oo siisay hay'ad markaa qaabilsan horumarinta wadamada isticmaalka oo markaa dawladda Ingiriiska waxay dawlad weyn oo wadamo fara badan gumeysatay dawlado fara badan oo colonial states hoos yimaadaan marka waxa jirtay sanduuq ay arrimaha malaha ugu tala galeen dadka ay gumeystaan inay fahmaan oo ay dhaqankooda iyo waxaas iyo sidii ay u sii maamuli lahaayeen
had fan qaabilsan oo deeq noocaas ah jirtay marka qoladaasa waxay siiyeen research grant ka markuu ka helay 1955 buu marka wuxuu ka yimi London intaanu ka iman waxay halkaa isku arkeen oo London joogay Muuse Ismaaciil Galaal oo jaamacadda London markaa dhiganayay oo linguistics-ka baranayay marka halkaasuu horta af Soomaaligii ugu horeeyay kooraskii ugu horeeyay Ismaaciil waxaas Lewis waxaa siiyey Galaal buu ka qaatay Galaal iyo saaxiibkii Andrzejewski nin la oran jiray isna Soomaalida daraasada Soomaalida aad odayada waaweyn ee daraasada Soomaalida ah marka Andrzejewski iyo Muuse Ismaaciil Galaal baa kooraskii ugu horeeyay af Soomaaliga ah London isagoo aan soo tagin bay halkaa ku siiyeen marka wuxuu yimi 1955 baa wuxuu yimi Somaliland marka halkaas wuxuu ka bilaabay inuu field work ka sameeyo isagoo ujeedadiisu tahay dadkan in la fahmo dadka kan Ingiriisku maamulay bal sidii loo fahmi lahaa oo macna loogu sameyn lahaa marka meelaha uu dadkii labu kala qaybiyay dad Soomaaliyeed oo kala qaybsan dad beeraley ah iyo dad xoolo dhaqato ah nomads oo xoolo dhaqato marka wuxuu xoogga saaray laba deegaanka Gabiley iyo areadaas oo ay degaan Habar Awal Saad Muuse oo ah reeraha beeraleyda ah Jibriil Abukar Xuseen Abukar Abdullah Abukar reerahaas Gabiley areada dega daraasad inuu fahmo si u degan yihiin dhanka kalena wuxuu yimi deegaanka ay degaan beesha dhulbaanta Sool iyo Hawd iyo dhankaas oo iyagana markaa fahmayo dadka xoolo dhaqatada iyo sida ay dynamicskooda iyo sida nool marka waxyaabo cajiibka ah markuu yimi Laascaanood isagoo meesha maraya baa wuxuu kula kulmay Awjaa Cumar Ciise oo garanaysan oo qoray diiwaanka gabayada sida Maxamed Abdullah Xasan iyo taariikhda daraawiishta qoray isagoo nin dhalinyaro ah oo ehludiina buu meesha ku arkay marka wuxuu yiri Lewis baa ka sheekeynay wuxuu yiri markaan Awjaa Cumar Ciise arkay nin dhalinyaro wuxuu go afka iskaga duubay taas go afka iskaga duubay wuxuu salaamayo salaanta xitaa way qaadi way marka wuxuu ka baqay malaha inaan fadhiyo marka isaga u fasirtay laakiin waa qaab bay iska ahayd marka qof dhaqameedku isaga holla u labistaan marka uu wareystay wuxuu yiri aad buu iga shakiyay ninka kan meesha maraya cadaanka ah welina waxa taagan utuntii iyo dhibaatooyinkii dhexmaray Ingiriiska iyo Soomaalida marka aad buu iga shakiyay laakiin markii dambe wuxuu fahmay inaan ahay nin arday oo wax baaraya marka halkaas buu Lewis markuu arkay Awjaa Cumar Ciise ka sheekeynayay wuxuu yiri markaan arkay ninkan cadaanka ah ee ka yimi London ee rabayno dadkaygii fahmo taariikhdii wixii ururiyo markaasaan anna u qalab qaatay inaan daraasay marka Lewis baa inspire gareeyay Awjaa Cumar Ciise 1955 halkaasuu marka 1955 buu qalin qaatay halkaasuu marka af Soomaaliguna ma qorayn halkaasuu marka wuxuu ururiyay oral history-ga iyo gabayada iyo marka ninkan odayga 2 sano buu field work waday oo daraasaynayay oo baadhayay oo dadka la hadlayay oo laakiin markaad fiirisid productionka uu soo saaray iyo waxa uu soo saaray dib baynu ka sheegi doonaa kitaabkiisa dissertationkiisa buu ku salaysan yahay actually PhD marka waxa la Pastoral Democracy baa la book classic ah oo Soomaalida iyo daraasadooda looga ixtimaado marka 2 sano xogta inta laguma ururin karo waa markaad akhrido
waad arkaysaa inay tahay wax laba sano qof foreigner oo aan dalka wax badan ka ogeyn hawl uu ururin karo ma aha marka ninku wuxuu access u haystay 70 sano archive-kii colonial archive-kii meesha yaalay buu access u haystay xogtiisay reeruhu oo kala ahaayeen say kala yaaleen wixii qaabkii ay colonial state-ku dadka ula macaamilayeen oo xogahoodii hoose waxaasoo dhan buu si yaroo fudud ku helay markuu noqday wuxuu ku dheeraamay assistant professor Glasgow buu ka noqday kadibna jaamacadda UCL kadibna LSE buu markii dambe London School of Economics buu markii dambe 1969 u wareegay halkaas uu markii dambe ilaa professor ka qaatay marka methodology-ga uu inagu daraasaynayo Soomaalida ku daraasaynayo waxa la dhahaa structural functionalism baa la dhahaa waa social sciences-ka waxa laga social science-ka khayr badan oo dhigata inay ku jirto waxa jira social sciences-ka markii daraasadaha compositivism-ku bilowdaan in la dhaho Comte Octo qofka aasaasay sociology-ga la dhaho sociology-ga aasaas culumtan kale ee social science-kana la dhaho aabu yahay baa wuxuu leeyahay 3 stage oo ay marayaan dadka fahanka bulshooyinka marka wuxuu leeyahay berigii hore dadka si theological baa loo eegayay يعني bulshada marka la fahmayo qaab diini ah baa loo fahmayo oo wax ka soo dhaca bulshada abuurteeda ah waxa la lahaa wax xaq wax rabbaaniyo way si rabbaaniya marka loo fasiriyo waxa ku soo xigtay stage ah metaphysical stage oo ah in dadkii loo fahmo qaab iyana metaphysical oo lagu xidho marka mafahim kale oo metaphysical qaybta ugu dambaysa metaphysics iyo theology ma kala foga buu leeyahay qaybta ugu dambaysa marka wuxuu leeyahay qaab ka ay tahay hadda in loo daraaseeyo waa qaab positivism in si scientific ah oo la taaban karo oo dabiici ah sida loo daraaseeyo علومta dabiiciga ah tajribada ah in qaab noocaas oo kala loo galo marka structural functionalism wax kala ma wuxuu aragti ah bulshooyinkuna waxay u sameeysan yihiin qaabka organic ah oo kale aan qofku ka sameeysan yahay xubno madax lugo wadna u leeyahay mid kasta waa basic organadaasi organo qofka markay isqoodiyaan qofkii baa soo baxaya abuurmaya marka ma kala maarmaya qaab noocaas buu organism-ku dhisan yahay marka waxay leeyihiin society-kuna waa qaab noocaas oo kale oo organism-kaas oo kale waxay leedahay unity-yadaas oo marka aasaasi ah oo ay marka bulshadu ka samaysmayso basic static units bay leedahay marka aragtidaas buu theoretical isagoo adeegsanayay marka waxay keenay aragtidaas la dhaho segmentary lineage wax kale maaha waa abtirsiinta geedka kan abtirsiinta ah hebel ilaa iyo reer hebel gelaya segmentary lineage-kaas wuxuu leeyahay geedku furuuc markasta leeyahay wuu kala qaybsamaya markuu halka oday soo gaaro saddex oday buu kala baxayaa odaygaas haddana sii kala farcamaya saddex bood buu sii kala noqonayaa wad adu ilaa uu soo gaaro adiga ku soo gaaro marka qaabka segmentary lineage-kaas bay ku salaysan tahay laakiin wuxuu segmentary lineage-ku unit-yada uu ka kooban yahay hal unit baa jira oo ah basic ah marka halka unit basic ah waa waxa ugu yeerayo Diabain group ama jifi soo wuxuu leeyahay waa jifi laakiin magac uu bixiyo loo Diabain group waa dadka marka magta wada bixiya reerka marka magta wada bixiya marka in reerka marka magta wada bixinaya ama Diabain group-ka waxay yihiin qaybta static-ga ah ee asaaska u ah buleeya marka nuxurka Soomaalida halkaas marka nuxurka Soomaalida ay dunta Soomaalida ay ka soo homaysan
marka qolada waxay soo hayay buu leeyahay contract xeer bay leeyihiin xeerkaas ay ku wada dhaqan yihiin oo ay ku kala wixii obligations iyo rights iyo xuquuqi waxaas oo dhan marka inaad segmentary lineage inaad fahantaan halkan just to see halka tusaale wuxuu soo qaadanayaa jifi kamida jifiyaha dhulbahanta halka waxaad ku aragtaan Daarood family waa clan family waxa ka soo hooseeya clan waxa ku xiga primary lineage waxa ku xiga Deerbane group waxa ugu hooseeya individualki qofkiiba ugu hooseeya marka wuxuu leeyahay halkan sare clan family-gaas ma inta badan political units ma ah waa si guud waa uu jiraa laakiin political unit ma hoos baa looga soo dhacayaa clanka laftigiisu political wait mararka violence-ki waxaas dhacaan waa suurtagal laakiin halka unuga ahay waa halkan waa Deerbane groupka kan ya marka halkaasa waxay tahay meesha ay ka noqonayso unitka aasaaska ah ee contractka iyo xeerka iyo isu dhimashada iyo waxaas oo dhan ay ku abuurmayaan marka qofku markaa wuxuu segments kala duwan buu sheeganayaa depend on the context marba meher buu joogaa mar clan family buu joogaa mar clan buu joogaa mar wuxuu joogaa lineage mar wuxuu joogaa Deerbane group marka wuxuu leeyahay Deerbane group waa asaaska laakiin kuwa kale dhan oo kale waxay ku kala duwan yihiin markaa contextka qofka markaa joogo ta kale genealogical wuxuu leeyahay genealogical distance-ka ay isu jiraan abtirsiintu qof kastoo abtirsiinta kaaga dhow qofka kale tolnimo ahaan iyo stolays ahaan iyo siyaasad ahaan uu kaaga dhow yahay dadka kale that's how he puts yeah marka tusaale ahaan structure-kan bal aan isla fir structure-kani in adeer iyo awoowe iyo ilmaadeer afraad baa la isugu imanaya hadda I think in la wada arkaan filaya tusaale ahaan baa wuxuu dhalay odaygaa baa wuxuu dhalay D iyo G labadaasuu dhalay haddana D waxaa kasii farcamay B waxaa kasii farcamay C D waxaa kasii farcamay A marka A iyo B waxay isu noqonayaan adeer A-ga kan halka kan iyo B-ga kan waxay isu noqonayaan adeer C oo kan ah iyo D iyana waxay isu noqonayaan awoowe waayo odaygana halkan oday baa u dhexeeya marka structure-ka noocaasa oo koraya baa wuxuu ku xidhnaanayaa dadku si ay u kala dhowdhow yihiin marka waxaa laga soo tirinayaa odayga lagu abtirsanayaa marka islaantu male wax saameyna oo xagga faraca marka laakiin way dhacdaa mararka qaar buu leeyahay in tusaale ahaan reerka la dhaho Daarood waxaa dhashay islaan dir ah islaantaa dir mid kale
waxaa la leeyahay daarood wuxuu ka yimi carabaha kadibna islaan dira buu guursaday islaantaa dira baa dhashay islaantaa dir baa marka soomaaliyeynta daarood loo tirinaya marka halkaasi ka gelaysa isaaq oo kale dir waxaa ka dhexeeya affiliation laakiin affiliationkaasi waa mid islaanta ka imanaya tusaalahaan waxaa jira reer la dhaho xeeb jira reer la dhaha jira oo reerka gudabiirsay ku abtirsada laakiin ma aha oday ahaan uguma abtirsanayaan waxay leeyihin islaam baa nago baa haddii lagu kuuran yahay islaanta gudabiirsay dhashay baana dhashay ya marka abtinimo bay isku abtirsanayaan marka qaabka traditionalka dadka traditionalka u darsay qaabka ugu weyn ay isu bahaystaan waa isbahaysiga halkaa ka timi ereyga bahaysi bahdu waa hooyadii moogta hooyadii baa marka carruurtii ay dhashay baa isbahaysanaya kuwo kaloo odaygu dhalo bah kale ah bay iska bahaysanayaano marka bahdu halkaasay ka timi marka xiriirka islaantu iyo bahuhu waxay aad u saameeyaan coalitionada soomaalida dhexdeeda wayna leeyahay iyo qaabka ay politically ay macaamilku u dhex marayo waliba marka isbahaysigu wuxuu dhacaa marka reer ama jifi la siman jifidaas tusaalahaan oday baa wuxuu dhalay maxamed iyo xuseen iyo jaaca uu dhalay xuseen iyo jaaca waa isku bahalkii waa isku bah laakiin maxamed baa tarmay baa la leeyahay tusaalahaan marka labada kale way marka waa inay isbahaystaan oo dhahan bah hebel baanna marka si ay politically ay u noqdaan dad ka hor imanaya kooxdii kale marka soo odaygu wuxuu guursaday 4 islaamood buu guursaday khadiija maxamed okay odayga 3 islaamood buu guursaday aamina iyo cambaro iyo khadiija odayga maxamed baa qaba marka kuwii khadiija dhashay bah khadiija la baxayaan kuwii islaanta aamina dhashay bah aamina la baxayaan kuwii cambara dhashay bah cambare la baxayaan marka hadhow kuwaas baa sii tarmaya halkan wuxuu ku fiirinayaa waqtigaas guurku reeraha uu daraasaynayay guurku intuu ahaa ka markaa cidda guursatay hal mar guursatay kuwa 2 jeer guursaday kuwa 3 jeer guursaday rag ka sheekeynaya si guurku ahaa marka segmentationka marka segmentationka clan structureka hadda structureka aynu arkaynay qalfoofka aynu arkaynay wuxuu u qaybsamayaa furuuc buu qaybsamayaa furuucdaasoo qaarkood ay isu bahaysanayaan bah ahaan isu bahaysanayaan sidoo kale structureka gudihiisa waxaa ku dhex jira irregularities fara badan baa ku dhex jira oo meelo fara badan baa waxay yihiin gaab waxbaa ka maqan marka meelahaas buu iyana saaraya tusaalahaan haddaad fiirsaan ma bahalka kan oo kale chartigan oo kale waxaa ka farcamay b iyo c iyo d ya b ba haddana waxaa kasii farcamay e haddana laba kalaa kasii farcamay b waxaa kasii farcamay sidoo kale f baa 2 generation oo kale oo sii socota sidan oo kale iyadu way farcantay laakiin haddaad u fiirsataan faraca ugu badan halka dhankan u jira
B baa aad u farcamay C baa ku xiga D baa marka ugu yar haddana hal oday bay isugu tagaan ya marka Adam Lewis wuxuu leeyahay sorry marka Adam Lewis wuxuu leeyahay reerka kan hadda D tan oo kale saddex oday bay tirsanayaan baa laga yaabaa kan F tuna ka ugu hoose waxa laga yaabaa inuu 7 oday tirsanaya ama 6 oday haddana hal oday bay ka soo farcameen waa structure ahaan way ismeeyeen marka maxaa khaldan buu leeyahay generation kan Soomaalidu waxay leeyihiin kana farcamay bay leeyihiin marka kana uu batay uu taramay uu hadii lagu kuran dad badan buu dhalay wakaas marka Adam Lewis isagu wuxuu leeyahay maya abtirsiinta meelihii reerihii aan markaa tarmini ama aan awood lahayn waxay odayadii qaar baa la ilaaway waxa ku dhacay marka wuxuu leeyahay waxa la structural amnesia abtirsiintii waa halkii buu leeyahay laakiin waa isku midkii labaduba waa sameeyeen laakiin kuwan la leeyahay laantooda gaaban laangaab haddaad maqashid laangaab waxa leeyahay laantaas way yarta not laantaas inay yartahay laakiin structural amnesia ku dhacday buu leeyahay odayada qaar aan muhiimka ahayn baa la ilaaway oo laakiin labada laamood way sameeyeen marka laga fiiriyo baal tusaalahaan wuxuu soo qaadanayaa nin Maxamed Muuse waxa weeye waa Maxamed Muuse Saciid kaas waa dhulbaanta Maxamed Muuse Saciid nin waxa laga yaabaa inuu Saciid ugu tago ama dhulbaanta ugu tago 7 oday ugu tago nin kale oo lineage hoose oo Naalay Axmed waxa laga yaabaa inuu ugu tago 20 generation marka wuxuu leeyahay Soomaalidu way la yaabeen markaan ku iri odayadii qaar baad ilowdeen waxna soo laaw kara qofku maalintu dhashay baa qof kasta wax la qaybsiiyay oday kasta hadii lagu kuna wiil kasta wax la qaybsiiyay odayadii dhalay awey marka suurtagal ma in abtirsiinta la ilaawo laakiin markaan si scientific u fiirisid waxa ku dhacay structural amnesia daas oo uu sheegay marka basically ninka Maxamed Muuse iyo ninka kale Naalay Axmed labaduba 20 generation bay tirsanayaan laakiin ninkana maadaama less important meelaha qaar odayada qaar meelaha qaar baa la ilaaway haddaba Adam Lewis scholarshipkiisa oo basically Soomaalidu inay dunta ay ka farcamaysa ay tahay segmentary lineage kaas markasta hoos u sii soconaya markasta hoos u soconaya kadibna violence iyo dhibaato iyo mushkilad ya qaybta ugu stable san marka wuxuu leeyahay waa qaybta DABN group qaybta mooy inta kale markay doonaan bay birta iska asli karaan way istilayaan oo baalkina waxay xeerinay ma jirto xeer male contract male ya qoladaas hoose jifida baan islayn kar inta kale waa unstable marka waqtigii doonaan bay istilayaan waqtigii doonaan bay hadii lagu koran heshiinayaan heshiiskooduna ma waaro stable ma political unitygooduna ma waaro wax laga yaabaa inay isbedbedelaan marka Adam Lewis wuxuu leeyahay markii burburkii dhacay markii Soomaalidu dagaaladii sokeeye dhaceen aad baa looga dooday Soomaalida iyo waxa ku sababay inay burburaan iyo marka odaygan isagu markii scholarshipkiisa soo cusboonaysay wuxuu yiri Soomaalidu markii hore waa sidan ay ahaayeen waxa kaliya isbedelay wax kale ma aha waxa isbedelay oo methodskii ay isku dili jireen oo bay isbedelay
markii hore warma isla dhilaan iyo AK-47 ya marka waxaan u sabab u leeyahay segmentary lineage-kaas qaybsamaya oo violence iyo dhibaatada keenaya kaasa marka u baahan in la fahmo marka bidaway haddaad ogsoontiin I.M. Lewis waa ninka keenay device gareeyay waxaa loo federalism-ka oo yiri war dadka kan most stable unit lagu maamuli karo waa federalism soo dad federal inagu waxaanu nahay federaalka waxa qaad dad ethnics kala duwan iyo ummado kala afaf duwan iyo kala hal ummad baynu nahay marka isagu wuxuu yiri dadkani ma aha nation ma aha astikale waa unitiska hoose waa in wax stable ka dhigi kara loo sameeyaa oo maamul goboleedo marka reerkas maamul goboleed loo sameeyo marka isaga device gareeyay London School of Economics qoraal dheer buu ka sameeyay oo qolada European Union ka ay fangareynay marka the guy was very involved in Somali politics iyo sida Soomaalida dib u dhiska loogu sameeyay iyo si loo fahmayo Somali civil war dagaalkii okay sorry halka sare waxa iigu qoran marka critique I.M. Lewis scholarship-kiisa sida loo naqdiyay iyana inaynu taabano waa macna inuu shukrinaysa marka cidda pioneer gareysay ninka bal ugu yaraan la critique lagu sameeyo iyo waxa Soomaalida ka qoray labada scholar ee walaalaha ah Axmed Ismaaciil Samatar iyo Cabdi Ismaaciil Samatar baa ugu horeeyay 1989 meelaha inay markaa ay address gareeyaan waxyaabihii uu Soomaalida ka sheegay marka Axmed Ismaaciil Samatar iyo Cabdi Ismaaciil Samatar waxay leeyihiin wax meesha ka saaraya I.M. Lewis class affiliation baa jiray waxaa sidoo kale jiray waxaa la dhaho xigaalka iyo riximka iyo xididka iyo waxaasoo dhan baa jiray waxaasoo dhan baa meesha ka saaraya waxyaabahaasoo Soomaalida isu hayay oo ay ku midaysnaayeen oo somehow waxyaabihii unitiska isu hayaa waxyaabahaasoo dhan uu ignore gareynaya marka isagu si qalalan wuxuu eegayaa oo abtirsiintii iyo chain waxa la dhaho segmentary lineage marka iyagu waxay leeyihiin waxyaabahaasaan focus ka saaran teeda kale waxaa jiray dariiqooyin aan qabiil ku salaysnayn laakiin dadku ay isugu imanayaan oo ay arrimo diini ah marka ay ku midoobayaan marka waxa dariiqooyinka xitaa si caadi ah uma baalkeen baydawi I.M. Lewis markuu meesha yimi uu reeraha markuu tagay wuxuu kale oo daraasad ku sameeyay dariiqada deganeed sheekh oo la oran jiray Dandaraawiya dariiq sheekh bay deganeed nin Sayid Axmed la oran jiray oo Sacuudiga ka yimi marka sheekh Sayid Axmed ninkii dariiqada aasaasay reer Xijaaz buu ahaa ninka odayga oo xagga wax ku soo bartay baa yimi sheekh halkaas ka aasaasay dariiqada ka aasaasay marka dariiqo aad iyo aad runtii oo vibrant ah bay ahayd dariiqadaas uu tagay uu daraasiyay marka isagu wuxuu leeyahay I.M. Lewis dariiqada wuxuu leeyahay already dariiqadana waxa ka muuqda waxyaabihii aan ku soo arkay bulshadan kale beeratada iyo xoolo dhaqatada reeruhu dariiqada waxay u kala degan yihiin reerihii diyada reer baa loo bixinayaa Allahu musta'aan marka nin dilo ninka u qoolanay waa maaha dariiqada ee waxa weeye waa ninka reerkiisa ah marka wuxuu leeyahay marka aad wuxuu focus gareynayaa oo wuxuu leeyahay dariiqadana waxa ku jirtay arrinta tan qabiilka marka isagu
ideadiisa kood waxa weeye qabiilku inuu yahay nuxurka asaasiga ah ee qofka Soomaaliga ah ama diin ha sheegto ama baalka ha sheegto ama meel kale ha joogo nuxurkaasa u ah aasaas u ah kasoo gudub ilma isamatar kasoo waxa iyana aad gabadha dhoo Catherine Bestman ba markii civil war ku dhacay waxay daraasad yar ka qortay joornaaladii markaa dunida ka soo baxayay waxa ay Soomaalida ka qorayeen oo basically ahaa dad isdilaya hadii la qoraya qabiilo cawaana oo isbaacsanaya isdooxanaya wax noocaas ba aad saxaafadda reer galbeedku ay baan marka gabadhan waxay leedahay basically reer galbeedku waxa ay ignore gareynayaan dhibaatada tan in iyagu ku lahaayeen qayb ku lahaayeen iyagoo isticmaalaya marka iyadoo waxay leedahay I'm Lewis waxay leedahay waa wax soo saarkii cilmiyeed ee mustacmarka colonial scholarship marka iyagoo I'm Lewis iyo wajhadii Soomaalida ka bixiyay isticmaalaysa Soomaalida u sawirayaan waa qaab isticmaari ah marka iyadoo waxay leedahay wax meesha laga saarayaa waxyaabo fara badan oo keenay dhibaatada not qabiil in dhibaatada Soomaalidu ay ku salaysnayd waxa cold war-kii iyo militarizationkii dunida saddexaad la isku baacsanayay wadamada saddexaad hub iyo saanad iyo qashin kasta la siinayo hadhowtan iyagu dhibaato u keenaysay aidkii ku socday wadamada saddexaad ee cold war ku sababay waxaasoo dhan waxay sababeen marka lacagta faraha badan iyo waxaas iska imanaya waxay sababeen social class iyo stratification dadku inay dabaqado samaysmaan dabaqado ku xiran markaa nidaamka meesha ka jira oo lacagihii wadanka imanayay iyo ku nool iyo dad kale oo markaa iyana dalab kuuran yahay ka qatan marka waxyaabahaas waxyaabaha roleska u ahaa in ma garanaysaa ay dhibaatada dhacdo marka looma fasiri karo kaliya in hadii la kuuran yahay ay tahay arrin si yaro basiid loo oran karo qabiil baa sabab markan ka nimaadno Catherine gabadha aadka sida methodologicalka odayga ula dagaalantay waa gabadh la dhaho Lidwan Captains waa Islamic scholar jaamacadda Wellesley College bay professor ka tahay history Africa marka I'm Lewis waxay ku eedeynaysaa basically waxay leedahay I'm Lewis wuxuu indhaha ka qarsaday hadii la buko saameyntii bulshada oo markaa darsayay oo British Somaliland dadkii ku noolaa ahaa saameyntii uu ku lahaa isticmaalka ku lahaa colonial apparatuskii state apparatuskii iyo qaabkii uu markaa u dhisnaa dawladda markaa gumaystuhu qaabkii dadku u maamuleysay oo indirect rule ah in hadii la buko yahay qabiilada la sii kala qoqobo mid kasta structure gaar loo sii sameeyo mid kasta headman iyo chief caaqilo iyo wax loo sameeyo si markaa rule-ka bulshada sida loo maamulay u fududaa waxyaabahaas oo 70 sano ay qolada tan craft gareynayeen oo ay wadeen colonial state oo dhan meesha uu ka saaray marka ku arki maysid wax la xiriira analysis la xiriira dadkan uu darsayaa nidaamka siyaasiga ay ku hoos nool yihiin iyo saameynta ku leeyahay marka halkaas weeye meesha ay leedahay Lidwan I'm Lewis waxa weeye wuxuu ku jiraa blind spot waa meel aanu tooshkiisu aragba isaga iska indha tiray marka waxay leedahay DBN groupka kan iyo waxaanu ka sheekeen iyo waxaanu dhahay waa colonial consensus waxa weeye dadkii markaa la maamulayay subjectiska ahaa iyo nimankii colonial administrationka ba through pacification iyo hadii la kuuran yahay iyo dadka in la dilo la caburiyo wixii kacal hadii la kuuran yahay madaxa laga joogsado la manipulate garay qaabkaas waxa abuurmay
bulshadii iyo colonial state-kii waxaa ka dhex abuurmay colonial consensus waxay marka ku heshiis yihiin oo ah qaabka kan uu hadda Aamilus inoo sheegay marka liduna iyadu saasay leedahay oo ay criticaas sameynaysa marka waxayna aad liduna u isticmaalaysaa nin odayo oo Afrika aad dadka u daraaseeya I hope in dhalinyarada ay akhriyaan Maxamuud Mamdani baa la dhahaa Maxamuud Mamdani marka Maxamuud Mamdani waa isagu waa dadkii hindida ahaa I think inuu hindida dadkii hindida ah ee Uganda deganaan jiray laakiin isticmaalkii iyo waqtiga Ingiriisku isticmaalka maamulayay ku koray Uganda ku koray oo marka dhibaatada colonialka ee dadka Afrika ku dhacday ay saameysay marka ninka odayga oo jaamacadda Columbia professorka buugu leeyahay markii jira oo la dhaho Citizens and Subjects oo ah in qaabka kan hadda bulshooyinka Afrika badankooda u samaysan yihiin oo colonial state ku lahaa ama dawladda isticmaalka dadka isticmaalku dawlad buu ahaa wuxuu lahaa dad u fuliya qaadiyo xeerar hadii lagu koronyahay regulations askar booliis wuxuu samaysa state caadi oo hal laakiin oo dad foreigner ayna maamulayaan marka ninka odayga ayaa marka ka dab qaatay yaase taageersan marka dadka taageersan ee arintiisa aadka u taageersan waxa kamid ah Sheikh Samatar scholar oo historian Soomaalida sida loo fahmi karo aaminsan Gashatek nin la dhaho gabadh la dhaho Virginia Lulin ina daraasado badan koonfurta ka qortay nin la dhaho isna Marcus Sohana isna Jarmal ah isna xagga waqooyiga wax ka qoray iyo scholar Maxamed Xaaji Ingiriis waxay basically waxay aaminsan yihiin in Soomaalida iyo analysis-kooda siyaasadeed iyo wax lagu baahin karo lagu fahmi karo ay methodology I.M. Lewis okayaalihii I.M. Lewis in lagu fahmi karo bay aaminsan yihiin marka it needs inaynu ka discuss gareyno marka wixii inta ka dambeeya waa intaas waxaan filayaa inaan idinku dheereeyay marka iga raali ahaada wixii commentiisa iyo su'aalaha بسم الله الرحمن الرحيم مجاعيق وتفتح محمد ورسمة وحومد علم بدأش السوشيال ساينس فورم إيو استيتك قيمة بدنا يمرتشر خصوصا قيب كشيء سؤال شعني عن قبل حيت هاي دور نوع من نوع كومنتي من نوع سؤال وحناش هاي معلنك ترنك مركي وسوق السعر يعني سدح نين أو وضع على تصالة ميدا ترمي mid kale tan xoogaa magaciisa macallinka wuxuu ku sheegay waa la ilaaway macnaha saa ogsoonayna waa sax way jirtaa dhowr qofood oo isla dhalatay in uu mid kamida uu tarmo midna uu yani in la waayo sida hadda uu sheegay ma dhigi karnaa ustaado lama waaynin sababtu waxay tahay dadka markii ay qolo walba intay qolada kale ay ka tiro badan tahay oo ay ka dhib badan tahay wayna ka anfac badan tahay sida daraadeed marka tiradaas badan walaalkiis kale ee farcama ayaa qariyay ma dhigi karaa Soomaalida waxay ku maamulada waarimiisida waxa ka hara soo marka qofka hadii tusaale uusan asoo wax dhalin oo dhinto bimacnaa magaciisa meeshaas uu ku baaba'ay soo marka si lamida ayadana maadaama uu wax yar oo ninkan way ka farcameen dadkaas tirada badan ee qariin la dhigi karaa su'aal waa midaas سؤال كلو عن قبو حيتهاي أما كومنتي أما سؤال إسكجور إيوا دول النمذا مياه سامين كله قبيلك بس قبيلك وحا كله سامين دول النمذا سامو دوكسون هاي لبا أرضي أو إسكو جلاسة أو لبا قبيلة كل الدوان أو صاحبة أو إسكو نتو أو حا دعي كرت قبائل كود إني بديها إسكو تجعلها سيد درادي المركا dawladnimada aanta ayaa waxa sababtay qabiilka ma la dhigi karaa soo marka hadii maanta ay meesha dawladnimada
ay ku badan tahay ama dowladnimo ay jirto soo waxaa la heli karaa police station qof haddii la dilo meel loo daalacdo haddii qof dhibaato u geysto meel loola xiriiro soo marka dowlad la'aantaa sababta ma la dhihi karaa in yacni ninka nabadoonkiisa la aado reerkiisa loo tago si diyada ama magdhowda ama waxyaaba loola bixiyo laakiin haddii institution dhisan la heli lahaay dhibaatadii la keystaaba waxaa laga inay maxkamad lasoo saaro ama aad dhici lahayd soo lama oqorayana waa mahadsan tahay Ustaad thank you runtii research laga qoray maan arag intaan arkayay laakiin waa meel u baahan inaynu daraasayno laakiin anigu isaan qabo كل Soomaalidu waxaa jira moogtay dad la dhaho animism oo iska cawaana oo aaminsan ruuxi iyo moogtay dhiri waxyaaba noocaas adigu waa falsafad diimeed oo aan horumarsanayn wadamada Afrika laga helay inta kulli dadka ma aynu ahayn sorry waxaan ka wadaa islaamku markuu inoo yimi sida fudud islaamku u faafay waxay tusaysaa inaynaan diin xoogan oo falsafadaysan inaynaan haysan sida wadamadan diinta kristanka ama hinduismka oo kale hindiya ka soo qaad hindiya islaamku wuxuu joogay 600 sano qarni haddana weli hinduismka waa ka jira waayo hinduismka wuxuu yahay falsafad ahaan diin horumarsan oo kanasa mafhuumka qofku ay adagtahay inuu siiro fudud uga baxo marka innaga waxay u badan tahay inaynu haysanay mafhuum guud diin fudud oo ah laga haysto marka laga haysto abuurta iyo konka I'm Lewis ma ku raacsanahay shakhsiyan I'm Lewis sida uu Soomaalida marka uu methodology isticmaalayo oo ah qaab reductionism ah oo qaab kaliya Soomaalida in lagu fahmi karo oo ah qabiilka politically marka la fiiriyo runtii ma anigu ma arko inkastoo mararka qaar ay suurtagal tahay inay u muuqato sida laakiin de ma aha sida kaliya lagu fahmi karo ma aha inta badan factors kala fara badan baa jira isticmaalku ma soo dirsaday isticmaalku way muuqataa inuu isticmaalku soo dirsaday I'm Lewis oo sida aan akhriyay markuu dissertationkiisa dhameeyay report 140 page baa wuxuu colonial administration ki British Somaliland lama daabicin weli lamana garanayo waxay u daabici waayeen laakiin kulli waxay la tahay waxa asaasi ku qoraayeen oo ku saabsan dadka sida loo maamulaa arinta ah weydiiyay walaalka weydiiyay taranka la ilaawi I'm Lewis markuu arinta dadkii u sheegay waxay dhaheen way ka diideen suurtagal ma aha bay dhaheen qofna abtirsiintiisa ma ilaawi karo ilaa carruurnimadii baa la baray laakiin markaad structure-ka fiirisid lineage-ka aad fiirisid dee wax irregularities oo ma garanaysaa bay u muuqanaysaa tusaalahaan 20 generation nin tirsanaya oday ka tirsanaya iyo nin ka tirsanaya 5 generation haddana isku mar nool isku mar bay nool yihiin maanta wada joogaan 5 generation buu tirsanaya midna 20 generation macquul ma hadde generationkii waa halkii generation waa moogtay waa inay wada noolaadaan hal waqti ya 20 generation baan tirsanaya adna 5 generation ama 7 generation baa tirsanaysa isla oday oo hal oday baan wada dhalay marka there must be some gap there ya marka gaabkaas inuu jiro anigu waan qabaa dawladnimada miyaa qabiilka saameyn ku leh mise qabiilka dawladnimada saameyn ku leh iyo su'aal aad runtii u ah weeye critical inta badan dawladnimada qabiilka saameyn ku leh either two way negatively or positively in qabiilka la manipulate gareeyo oo cadaawad qabiil la abuuro hadda lagu kuran yahay dadka la iska hor keeno iyo qaabka waliba maamulka iyo dhaqaalaha iyo waxaas oo dhan ay u saameynayaan bulshada waliba marka cadaalad darro jirto qabiilkii saameyn bay ku yeelanaysaa marka waa two way approach way is saameynayaan marka
way yar tahay waxa negative-ka ah ee qabiilka dowladnimada ka soo gaara markasta negativity-gu wuxuu ka socdaa dhanka state-ka either colonial state-ka ahaado ama post colonial state-kii dowladnimadii 60kii kadib markii caalamka la qaatay kadib marka taasaan qabaa waxaan filayaa waa بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxaa la yidhahdaa yaxya ibraahim maxamed su-aalna waa qabaa hal combatin waxuu soo jeedinaya professorka ama ustaadka su-aashaan haddii aan su-aashaan soo hormarinaya kolley im louis wuxuu daraasiyay bulsho soomaaliyeed oo aan qabiil u dhisan bulsho soomaaliyeed oo yani qabaa'ila dowladdii soomaaliyeed ee 60kii ilaa hadda 61 sano ee soomaalidu dowladnimadeenu salka waxay ku haysay qabiilka haddii la daraasiyo nidaam cusub oo dunida heer galbeedku naga eebiyeen oo liberal iyo dimuqraasiin waa naloo keenay qabiiladuna waxay lahayd dhaqankooda goonida haddii daraasiin lagu sameeyo nidaamkii dhaqan ee bulshada soomaaliyeed isku xukumisay ee caaqil lahaa ee ugaas ahaa malaaq ahaa nidaam dowladeed oo soomaalida deeqa dowlad ahaan ka soo bixi kara yani si kooban nidaamkii qabiilka ee cadaaladaha hoggaanha nidaamka dowladnimo ma barbar jiifsan karaa ama lamaana ma noqon karaan committeega qaban wuxuu yahay professorka waxaa ku codsanaynaa ama ustaadka slaydiyadaas inuu meel aan ka heli karno tusaale ahaan baraarug library halka library kaliya Soomaalidu leedahay digital ama isagu page-kiisa ama degalkiisa goonida ay Facebook inuu noo soo dhigo magacaygu waa Shirmaake Maxamuud Jaamac ustaadka waxaan rabaa aragtidii David Lewis oo fallaynta ka bixiyay inaan ka weydiiyo waxaa meesha uga jeedna in la yiri wuxuu daraasiyay guud ahaan dhaqanka Soomaalida Soomaaliyana waxay degtaa deegaano aad u ballaaran markii loo kala qaado waqooyiga iyo koonfurta aragtidiisu inta badan waxay ku salaysnayd ama hab dhaqanka ama qabaa'ilada degay sida u nool yihiin gobolada waqooyiga ay leeyahay British Somaliland ustaadka marka waxaan rabaa inaan dhaho David Lewis ma dhigi kara wuxuu ku jiray dagaal maskaxeed meesha gumaystayaasha Ingiriiska iyo qoriga iyo taangaasha ay ku dagaalamayeen isagoo wuxuu ku dagaalamayay qalinka iyo maskaxda sidii bulshada Soomaaliyeed loo kala furfuro inta badan meelaha oo daraasadda ka sii waxayd meelihii kacdoonkii uu ka jiray dagaalanka Ingiriiska way marka dhaqamada Soomaalida degta waqooyiga iyo qabaa'ilada mid uu kala dhigay haddii daraasad Soomaaliyeed uu sameeyo gobolada kale koonfurta wuxuu uga sameyn waayay daraasadda iyaguna halka ku jiray la dagaalankii gumaystihii Talyaaniga marka guud ahaan waxaan rabaa inaan ku soo koobo David Lewis wuxuu dhintay 2014 I think 1930kiina waa dhashay dhalashadiisii ilaa qaangaarkiisii ilaa dhimashadiisiina mar walba wuxuu ka shaqeynayay dibindaabyada iyo dhibaatada Soomaaliyeed iyo in aysan dhalan dowladnimo Soomaalida lagu xasilo waana run wadanka in loo kala qaado head of state federalism loo kala dhigdhigana waxay aragtidiisii iyo buug yar oo isla taqriiban content page buu joogaa ama uu leeyahay ayuu wuxuu ku kala dhigdhigay in loo kala gooyo qabaa'il iyo tuulo isagoo ugu talagalay dowlad Soomaaliyeed in aysan weligeed isku iman marka ilaa intuu ka dhimanayay ustaadka waxaan rabaa inaan weydiiyo ma dhihi kara wuxuu ku jiray dagaal siyaasadeed iyo argoosi ku salaysan gumaystayaasha Ingiriiska yaxye walaal yaxye su-aashii weydiiyey oo ahayd haddii daraasad lagu sameeyo qaabkii dhaqan ee Soomaalidu laga soo saari karaa qaab Soomaalida ay leedahay oo ay dowladnimadeeda ku dhaqato anigu waxaan qabaa haddii daraasad laga sameeyo oo qaab Soomaaliyeed oo asal ah loo sameeyo waxay la tahay wax fara badan oo macno leh inay ku jiraan dhibta dhacday waxa weeye qabiilku wuxuu lahaa kaliya abtirsiin ma ahayna wuxuu lahaa sidoo kale xeer iyo contract buu lahaa marka siyaasaddii markii siyaasadda la geliyey aad loo boonbooniyey qoladii markaa dowladnimada Soomaalida qabatay 60kii waxay sameeyeen inay xeerkii meesha intay ka saaraan xeerkii reeruhu lahaayeen iyo wixii
qabiilkii oo qalalan oo sidiisii ah marka intana siyaasadeed loo isticmaalo oo marka xeer nimaan lahayn xeerkeediina laga tag laakiin baalkii oo qaabkiisii oo ma garanaysaa leetalka ah ee sunta caabuqan bay isticmaaleen taasaa marka keentay in siyaasadeen ilaa 60kii ay iska ahaato mid qaab aan macno lahayn ku salaysan marka aniga walata in wax badan aysan laga heli karo laakiin waxay u baahan tahay in daraasad qof indha dadka wax la dhaho daraasado baa jira ma ogtahay la dhaho daraasadaha dadka asalka ah marka daraasad haddaad ku fiirisid dhibaato problemku haysta haddaad ku fiirisid manduur markaa kaa duwan ama aad ku tiirsanaatid dad markaa aan adiga ahayn macna fara badan ka keeni maysa marka haddii daraasad maxalli ah oo deegaamaysan haddii la sameeyo waxay la tahay in wax ka soo baxay slide-ka insha allah waan soo wadaagayaa social science forumna waan la wadaagayaa madalaha kale walaalku sheegay baraarugna waan soo dhigaya insha allah I'm Lewis su-aasha labaad walaalku weydiiyey I'm Lewis waa run wuxuu daraasadiisu ku saabsanayd waqooyiga laakiin isagu wuxuu leeyahay daraasadeedani waxay qabanaysaa buu leeyahay soomaalida pastoralka ah ee xoolo dhaqatada iyo beeralayda ah ilaa iyo marka laga reebo kuwa degan labada webi iyo wixii xaggaa ka shisheeya marka wuxuu leeyahay qaybo yaryar oo ka mid a koonfurta shishe ee soomaalida dadka degan oo hawiyey daarooda marka laga reebo soomaalida kale oo dhan kasoo bilow dadka qolooyinka gari koombe iyo ee degan jigjiga iyo dhankaas ilaa iyo soo gaadh hiiraan wuxuu leeyahay marka waa somehow way waafaqaysaa buu isagu leeyahay marka ها arrinta ah walaalku uu weydiiyo ina koonfurta wax daraasina kama samayn laakiin wuxuu leeyahay koonfurta meelaha qaar san sheegay sida dadka labada webi iyo dadka Bay Bakool dega waxay ku salaysan tahay arrintooda wax kinshipka kuma salaysna laakiin waxay ku salaysan tahay geographical dadka markaa deegaankaa wada degan not inay hal qabiil wada yihiin ba istolaysanaya marka tolnimo deegaameed baa ka jirta dhulka Bay Bakool tigli milifta deegaan dhulka labada webi marka dhibaatooyinka dhacay waliba waxa ka mid ah aniga say la tahay perspective-kayga deegaamaysiga noocaasi haddii waqtigii dowladnimada la qaatay haddii la buunbuunin lahaa waxa weeye nation state fiican oo macno leh Soomaalidu qabiilka kaga gudbi karto inuu soo bixi lahaa laakiin cagsigeeda waxa la buunbuuniyey waxaan reeraha kan I'm Lewis inooga sheekeynaya hadda ba la buunbuuniyey kadibna state-kaana ku lahaa role ku lahaa marka taasaa sababtay in wax badan oo dhibaato ah hadhowta dhacaano nation state fiicani oo inoo samaysmo waayo dowladnimadana weli ka tegi weydo qaabka hadda I'm Lewis ugu horeyn magacayga waa Aisha Xasan Axmed ustaadku waxaa rabaa laba su'aal inaan weydiiyo maadaama meesha taariikh Soomaali looga waramaayay laba su'aal oo anaga related nala ah Soomaali ahaan haddaan rabo inaan ustaadku weydiiyo su-aasha kuwaad waxay tahay yani dadka Soomaalida origin ahaan halkee ka yimaadeen يعني قبائل كل دودونا Soomaalidu ka samaysan tahay miya intuu samaysmo Soomaalinimo saas ku baxday mise si kala ku nimaanay su-aasha labaad weydiiraan waxay tahay yani intaana luqadda Soomaaliga la qorin maxay dadka Soomaalida isku fahmi jireen oo ku hadli jireen maasan ustaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bulshooyinka caalamku way ku kala duwan yihiin habka dhaqan dhaqaale inaguna kuwaas oo ka mid ahayn dad waxaynu ahayn xoolo dhaqato iyo isugu jira iyo beeraley I'm Lewis dabcan waqooyigu ka sameeyay laakiin
dabcan koonfurtana saawan bay soomaalidu ahayd waxay ahayd beeraley iyo xoolo dhaqato marka soomaalida innaga oo reera ah waxaa inoo yimid dowlad isticmaarka markuu tegey xorriyadda la qaatay qaab dimuqraadi aynu isu dooran jirnay ilaa 69kii militarigaa yimi wuxuu tijaabiyey isaguna hanti wadaaggii ugu dambeyn dowladdiina waa duntay dagaaladii sokeeye kadib waxaa bilowday haddana qaab diimeed oo maxkamadihii iyo itixaadkii wax la halmaala dhammaantood may shaqayn marka soomaalidu qaab kale oo ka duwan dimuqraadiga iyo hanti wadaagga iyo qaab kale oo soomaaliyeed oo bal dhaqankii iyo geeljiranimadii iyo beeraleydii intaanu dib u eegno si kaloo aan u wada noolaan karno oo dowladnimo bal innagayna matasha aan u samayn karin fikir kale falsafad kale oo siyaasadeed ma abuuri karnaa intaynu blind iska dhigno aynu macnaha ka soo qaadnay inaanay jirinba qodobadaasi sida dimuqraadiga wala marka dowladnimo soomaaliyeed ma samayn karnaa oo dhaqankeena ka turjumaysa qodob kale aan rabay inaan weydiiyo waxa weeyaan diintu saamayn intee lag bay ku leedahay dowladnimada soomaalida si loo dhisi lahaa sababta factor la neglect garayn kara ma aha oo arrin jirta qodob kale waxa weeyaan reernimada sidee loogu bedeli karaa ideology iyo afkaar siyaasi oo dadku kala duwan yahay waxaynu ognahay dowladnimo markay dhacday qof laga yaabo inuu mucaarad ahaa ayaa waxaa loo dhibaateeyey in tusaale ahaan madaxweynihii dhacaya isku reer ahaayeen marka saddexdaa qodob baan rabay inaan weydiiyo maasanta ustaad waa mahadsan ustaadka iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha hal su-aal aan wataa su-aashaan wata waxaa waaye ustaadka dayt wuxuu ka dhawaajiyey in beel ka mid a beelaha soomaaliyeed aabeed uu ka yimid carabta waxaa jira kala duwanaansho soomaalida maanta arrintaas waa lagu kala duwan yahay oo origin ahaan waxaa la isku haystaa qaarna waxay leeyihiin waa carab baan nahay qaarna waxay leeyihiin waxaan nahay afrikaan realityga geographically soomaalida waxay ka tirsan tahay qaaradda africa waa eastern africa ee kusii taalla waa kushetig waaye taas ma la isku haysta laakiin dadaa weli waxay aaminsan yihiin in soomaalida ay carab tahay ideology sax ah ma loo hayaa soomaalida inay afrikaan tahay oo tig ah mase inay carab tahay labadaas waa aragti doodo weyn ka taagan laakiin wax sax ah ma jiraan meel aan leenahay ka Soomaali ahaan waxay bada inay yihiin su'aalo waaweyn oo duca ilaaha marka waxaan soo just inaha aan xogta ka hayn badan loo eegaya xaggay Soomaalidu ka timid oo weydiisay walaashu iyo Soomaaliga maxaa lagu qori jiray intaan Soomaaliga la qorin Soomaalidu horta waa daraasado taagan weeye iyo problemyo research oo taagan oo hadda dhalinyarada hadda idinka oo markaa jaamacadaha iyo postgraduateska aad sameysaan inaad daraasaan bay noqonaysaa laakiin waa doodo taagan Soomaalidu waxay ka timi iyo doodahaas marka I think in aan wax definitive ah jawaab definitive ah laga bixin maxaa lagu qori jiray maxaa wax lagu qori jiray af Soomaaliga ka hor waxaa wax lagu qori jiray laba luqadood oo jiray oo dadka qaar isticmaali jireen SWL luqad gaar ah bay lahayd oo Soomaaliyeed oo Ismaani script loo oran jiray wax lagu qori jiray waxa kaloo jiray dad isticmaali jiray af Carbeedka ereyada af Carbeedka oo Soomaaliga ku qori jiray waxa kaloo jiray scriptyo kale oo meelaha qaar localized ahaa sida awdal iyo deegaanada script oo deegaanada ka soo jeedo oo lahaa marka way jireen laakiin dadka Soomaalidu inay wax qoraan markii af Soomaaliga Laatiinka laga dhigay baa ugu horeysay qaab weyn oo maas ah su-aasha labaad uu weydiiyey walaalku su-aal aad runtii mawduuc weyn ah oo ah Soomaalida qaab kale ma looga fikiri karaa iyo dowladnimada casriga iyo qabiilka sidee la isu qabadsiin karaa ma laga gudbi karaa model kale ma la hindisi karaa waxyaabahaas oo dhan aniga waxay la tahay in aniga hadda thinking aan laga yaabo inaan isbedelo laakiin hadda waxaan taaganahay qaabka aynu hadda inaynaan noqon dad modernized oo xadaasada si fiican
ula qabsada waxa kow ka ah dadkeenu bulshadeenu 90% waa dad sabool aynu nahay dadku markay sabool yihiinna ma samaysmayo wacyi cusub oo haddii lagu korayo lagaga gudbo qabiilka lagaga gudbo dadku waa dabiici dadku inay qaybsamaan division u yimaado waa dabiici laakiin maxaa lagu qaybsamayaa baa imanaysa dee bulshadana saboolka waxaynu ku qaybsamaynaa un qabiil wax kale ku qaybsamaynaa laakiin bulshada haddii dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan haddii bulshadu dhisanto waxyaabo kale oo lagu qaybsamayaa imanaya kuwaasaa marka siyaasaddii ay ku salaysmaysaa la isku dooranaya la isku baalkaya marka waxaynu u baahannahay inaynu ka fekerno war sidee baynu dhaqaale ku samaysanaa su-aashaasaa aniga muhiimka ila ah that's the critical question in isweydiina sidee dadkeenna hanti loogu sameeyaa iyo wealth ya oo ay ku noqdaan dad haddii lagu korayahay hanti iyo waddan dhaqaale fiican leh sidaynu ku noqonaa taasaa aniga igala muhiimsan inaynu hadda ka fekerno dowladnimo cusub oo pure oo hadda ina waafaqsan tan ha la iskaga meel gaadho laakiin ujeeddada koowaad ha noqoto in dhaqaale iyo wealth dadku yeeshaan dii kale reerkaasaa loo kala fadhiyaya su-aasha labaad ee dadka sidee looga dhigi karaa kuwa afkaar ku kala duwan oon qabiil ahayn I think su-aasha jawaabtaasaa ka jawaabaysa arrinta ah soomaalidu carab iyo xay ka timi su-aasha saddexaad ee walaalkii weydiiyey ah carab iyo xay ka timi su-aalaha adag bay ka mid tahay laakiin waxay u badan tahay in aynu dad africa kushitig ah afrikaanka walaalihiin oromada iyo soohada iyo dadka kale hadda ka sheekeynayay ilaa nuweeriyiinta suudaanta dad halkaa un ka yimi arrinta tan waa la iska fahmi karaa iyo sheegashada carabta oo ah in laga raadinayo markaa qadaasad diiniya oo u fiirso reeraha soomaalida oo dhan quraysh bay galaan maxay carabta boqolaal reer oo kale lahaayeen yawaniin baa jirta dad kaloo ahlu shaama baa jiray kuwa cid sheeganaysa arki maysid marka waxaa laga raadinayaa qadaasad diiniya iyo magaranaysaa iyo sanctity iyo dadku inay ka helaan magaranaysaa ay ka helaan macno diini ah u sameeyaan identity marka waxaan filayaa intaasay ahaayeen